السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وين سلامين سو دوادا جنالك نقل ساعتان وحويان عبدي اوفيشيال فلوجز وبرامج كني عصباي او نعاود سو تبينينو اصحاب توري اصحاب دمان waxaan leenahay sida jiraanka fikra u saarteen waad ku maasantiin boqolkiiba boqol wajigay maad celinayna kuwad cusubna waxaan leenahay soo dhawaada haddii aragtaan klibkaana share gareeya like saara comment-gana ka sheega insha Allah billahi karim fikradiina nala wadaaga muhiim ay inoo tahay waa qisadii eeday gabar jacayl qaabkii ku dhacday iyo barnaamijka qaybtii labaad ayay geli doonaa insha Allah billahi karim wadna mahadsantiin insha Allah nala socdo sida ku bilaabatay sida tan ma sheegi doono halkay gabadhu joogto iyo halkii uu joogay wiilku insha Allah gabadha maalmaha ka mid ah ayaa gabadha waxay sheegtay inay aragtay wiil Soomaaliyeed ayadoo saaran baski gudihiisii ayay wada sheekaysteen isku barteen sidii barnaamijka noola wadaagtay lambarada ayay kala qorteen wiilku markaas ma uu u sheegin inuu leeyahay family kaleeto waxa uu sheegay inuu yahay qof kaligiisa oo weli guursanin markiiba waxay samaysay gabadhii maadaama ay gabar Soomaaliyeed xariirkii weedkaysa waxay isku dayday inay intii ka gaari karto ay ka gaarto macnaha ayna isku daydo intay wadi karto xariirka inay wado ilaa iyo heer guur sida loogu talagalay gabadha waxay samaysay yarkii way sheekaysteen waqti badan markii dambe waxaa dhacday inuu wiilkii ka soo tago dalkii ay markaas joogtay gabadhu oo soo aado wadamada Yurub wadan ka mid ah markaasna oo markuu hal sano camal joogay hore asoo gabadha ula xiriirayay oo iska dhaafo gabadha contactigeedii amba xiriirka uu gabadha la sameynayay gabadha siday naqataba way soo taariibtay waxay soo gashay wadamada wadan ka mid ah Yurub amar ilaahay waxaa dhacday in ay wadamada uu joogo wiilku wadanka uu joogo wadan ka mid ah oo u dhow inay imaatay halkay iska dhiibtay alxamdulillah arrimaheedu way u tooseen ka bacdina waxay samaysay ayadoo maalin iskuul aadaysa ama college u garanaysaanba ayay waxay aragtay college-ka banaankiisa ayadoo taagan oo weli aan gelin galaaska ayay waxay aragtay wiilka oo wata caruur iyo gabar markaasna waxay ku tiri sida tan walaal inta ayaan ku sugayay inaad dhimatay ina noosha ma ana maqlin dibna maadan igu soo noqon wax warana maadan ila wadaagan xaaladaadi waxay ku sugan ma garan karo ilaahda siday wax yihiin markaasna gabadhii waxay samaysay wiilkii halkii ayay isku wada sheekaysteen halkii ay ku sheekaysteen waxay ogaaday wiilkii inuu gabadha guursaday sidina ay arintoodii ku dhamaatay halkaasna ay ka dhacday macnaha waxa la yiraahdo uqdad nafsi because gabadha ayadoo intaas sugaysay wiilkii soo taariibtay imaatay Yurub iyo wadan ka mid ah asigina aynan helin dan waxay samaysay markiiba wiilku gabadha uu qabo iyo ayadii ayaa waxay noqdeen like family oo macnaha kor iska garanaya waxay u sheegtay wiilkan inuu family hore u haystay tanna oo meesha ka aroosay ayada wuxuu u sheegay oo dhan ay hayeen waxba inay ka jirin oo been aadiyadana wuxuu nahay gabadha ilaa hadda tala idinka sugaysa haddii la yiraahdo taladeeda la soo wadaaga comment-ga ku soo qora insha Allah billahi karim fikradiina ay ka tahay iyo waxay ka sameeyso arrintaas haddii la yiraahdo wadna mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh is aragti dambe oo xiiso leh insha Allah billahi karim